codsigeen walaalayaal waa in aad subscribe noo saartaan kabacdi gambaleelkana aad furataan kabacdi like-tana aad noo saartaan waliba noogu dadaashan like-ta kabacdi share-na aad dhahdo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. walaalahayga Soomaaliyeed meel kastoo aad joogtaan kusoo dhawaada waa Sheekh Rimi Channel. waxaan ku balansaneen maanta oo kale in aan idin soo jeediyo jawaabihii riyooyinkiina ilaa iyo waxaa ii diyaarsan 7 jawaabood oo aad na soo weydiiseen. hadduu alla yiraahdo su-aasha koowaad waxay sheegaysaa sheekhow waxaan ku riyooday waraabo oo ciyaalkayga iga soo weeraray ayaan ku riyooday. bismillaahi wasalaatu wasalaam calaa rasuulillah. su-aashaasi jawaabteeda waxa weeyaan waraabaha ama dhurwayga haddii aad kala xaqiijin karto inuu yahay rag ama dumar, isla sidaas oo kale rag iyo dumar ayaa lagu kala fasiraa. haddii dumar ay ahayd waxaa lagu fasiraa naag saaxirad ah ma garanaysaa kugu salladan isla markaasna ay arki la'dahay awlaadaada, marka ilaah ka magangal baa lagu leeyahay. haddii awlaadaada aad ka ceshatay waxba kuguma dhibi doonto insha Allah, balse haddii ciyaalka qaar ka mid ah ay ka cuntay ka taxadir, islaan oo cadow ah ayaa jirto, marka waxaa lagu leeyahay Allah subxaanahu wa ta'ala ka magangal biidnillah. haddii nin uu yahay dhurwaaga aad aragtay, haddii nin uu yahay waxa lagu fasiraa nin yacni dhagar badan oo magaranaysaa kuu gaban. haddii xaafadaha ama magaranaysaa gabdhahaaga qof ka mid ah yacni laga soo doonto oo qofka ka soo doontana uu yahay mid ciyaal suuq ah aad og tahay, ha ku fududaanin. marba haddii aad riyadan oo kale aad aragtay waxaan ku dhihi lahaa iska jir, waayo waa nin dhagar badan, khayr laawa ayaa lagu fasiraa haddii rag uu yahay. balse haddii aadan kala xaqiijin karin rag iyo dumar wuxuu ahaa, yacni lab iyo dhadigan ula jeedaa, wuxuu ahaa dhurwaaga. haddii aadan kala garan karin ilaahay ha ka badbaadiyo sharta kuu soo socota, yacni sadaqada baad soo xirsa, xirkana badi, wallahu aclam. riyada labaad ama su-aasha labaad oo riyada ku saabsan waxa weeyaan waxaan ku riyooday aniga oo iska jarayo timahayga oo iska gaagaabinayo, weliba aan aad iyo aad ugu faraxsanahay. bismillaahi wasalaatu wasalaam calaa rasuulillah. su-aashaasi jawaabteeda waxa ay noqonaysaa hadduu alla yiraahdo qofka marba haddii timihiisa uu jarayo uu ku faraxsan yahay, waa arin farxad leh. waxaad ku bishaaraysataa murugta iyo welwelka iyo mashaakilka ku hayay in mar dhow uu magaranaysaa uu ka tagi doono, uu ka dhammaan doono ayay caddeyn ay u tahay. maasha Allah. marka waxaan ku dhihi lahay hadduu alla ku roon yahay ku bishaarayso, waana arin fiican marba haddii adiga aad ku faraxsan tahay. timaha la jaraya waxa ay daran yihiin marka qofka uu murugsan yahay, balse haddii uu ku faraxsan yahay murug ku haysay baa ku dhaafi doonta, mar dhow faraj baa ilaahay kuu furi doono, wallahu aclam. su-aasha saddexaad waxa ay tahay waxaan ku riyooday aniga oo qof aan garanayo ii hibeynayo faraanti dahab ah oo ninkaygana uusan ahayn. maxay tahay? bismillaahi wasalaatu wasalaam calaa rasuulillah. waxaad ogaanaysaa haddiiba mar qof adiga aad taqaanid kuu hibeeyey ama hadiye ahaan kuugu keenay faraantii dahab ah, mar dhow waxaad magaranaysaa lagu soo bandhigi doonaa arin oo yacni magaranaysaa wanaagsan oo yacni shaqo fiican ah ayaa lagu soo bandhigi doonaa. shuraako qofaad noqon doontaan ha ahaado ama yacni dhinac ganacsiga ha ahaato, ayu nooc baa lagu soo bandhigi doonaa. arin fiican waaye. haddii
oo qof la qabay adiga aad tahay oo riyadan aad ku riyootay awlaad la-aan haddii aad ahayd insha allah waxaad ku bishaaraysanaysaa in aad magaranaysaa yacni uur aad qaadi doontid. haddii adiga magaranaysaa aadan yacni haddii uur adiga aad heshay ama uur adiga aad leedahay waxaad ku bishaaraysanaysaa in aad dhali doontid gabar insha allah. haddii gabar aad ahayd oo yacni haddii gabar aad ahayd qof wanaagsan oo ku qalmi doona ayaad heli doontaa oo yacni xaas ku noqon doona ama nin ku noqon doona. haddii ninkaaga iyo adiga xurguf idinka dhaxaysay haddii xoogaa tashwiish dhexdiina uu ka jiray waxay caddayn u tahay in mar dhow aad kala tegi doontaan wallaahu aclam. su-aasha afraad waxay tahay aniga waxba kuma riyoonin balse asxaabtayda iyo qaraabadeyda ayaa dhowr jeer waxa ay ii sheegeen in ay ku riyoodeen in aan guursaday balse mararka qaar waxaaba la iigu daray in aan xalwada ka qarsanayo in ay ii sheegeen. bismillaahi wasalaatu wasalaam calaa rasuulillaah. marba haddii adiga aadan ku riyoonin dad kale ay kugu riyoodeen waxaad ogaataa in guur lagu soo bandhigi doono mar dhow. guurkaasi lagu soo bandhigi doono waxaad ogaanaysaa adiga oon jekin marin amaba istikhaaro aadan samaynin wadatashi badan aadan la samaynin ha ku degdegin. guur baa lagu soo bandhigi doonaa balse haddii uu yahay qof aadan garanaynin iska jeegaree oo wadatashi ballaaran bixi. haddii aad garanaysay qof aad ku kalsoon tahay diintiisa akhlaaqdiisana ay tahay maasha allah weeyaan guurkaasi wuu ku fiicnaan doonaa dadkaba say ku arkeen insha allah waad ku dhaqaaqaysaa wallaahu aclam. su-aasha shanaad waxa ay tahay waxaan ku riyooday laba habeen oo isku xigta laba habeen oo isku xigto waxaan ku riyooday marna timo dhaadheer oo qurux badan in aan magaranaysaa aniga aan leeyahay marna geed dheer oo geed timireed ah aan fuulayo ayaan ku riyooday. maxay noqonaysaa? bismillaahi wasalaatu wasalaam calaa rasuulillaah. marba haddii aad ku riyootay timo dhaadheer oo qurux badan marna aad ku riyootay geed timireed oo aada u dheer cimrigaaga waa uu dheer yahay waana lagu sii sheegay inuu cimrigaaga uu dheer yahay. anna waxaan kugu dari lahaa ka faa'iidayso cimri dheer oo cibaado leh iyo caafimaad suuban iyo aakhiro janno allaha kugu bedelo insha allah cimrigaaga uu dheer yahay wallaahu aclam. su-aasha lixaad waxa ay tahay waxaan ku riyooday miskiga madow oo i hor yaala. bismillaahi wasalaatu wasalaam calaa rasuulillaah. miskiga madow waxaa lagu fasiraa taxqiiq umniye aad lahayd muraad aad lahayd baa ilaahay kuu sahli doono hadduu alla yidhaahdo. waxay doonto ha ahaato dhinac dhaqaale ha ahaado dhinaca guur ha ahaado dhinac safar ha ahaado dhinac awlaad ha ahaado dhan kasto muraadkaad doonaysay oo dhan baad heli doontaa biidni illaahi alkariim.